soo dhawaada qaaliyaal inta waxaa ku heesanaa baamiyo marka waxaa ugu badatay baamiyaha qaab noocee loo isticmaalaa waxaan nii soo geliyey laba qeybood aa u isticmaali kartiin videoga dhexdiisa aan igu tusaa hadda qeybta koowaad saa aragtiin baamiyaha laba qeyb u kala qeybsan doonaa hadda qeybaa jarjaraa marka dadka inta badan waxay dhahaan fiidiyoosha abaayo waa boobsisaa aad ma u fahanna camal ay dhaheen su-aalaha igu soo laabanaya marka maanta xoogaa tartiibaa u duubay videogan wuu dheeraaday saas darteeda youtube ugu dhignay marka hadda waa jarjaraynaa haafaa jarjaray haafkiia waxaa sameynaa digsigaa ku shubay biyaa ku darsanaa marka oo aan rabo inaad dabka la saaro marka baamiyaha dadka timaha adag ka cabaada aaduu ugu fiican yahay dadka timaha badan wuu u fiican yahay dadka timaha yar wuu u fiican yahay yacni qof oo dhibaato u keenayo ma lahan dadka dhahaya timaha afka hore xataa way iga adag yihiin oo kale wajilcina baamiyaha suu cajiib u yahay 30 daqiiq ka badan xataa duu kuu marsanaado heer waxay gaari timihii ay aada u jilcaan kadibna timihii ay kaasi siimaan marka 30 daqiiq ka badan ayuu kuu marsanaanin haddana waa kana waa soo saaran dabkaa soo saaran hadda qeybtaana idin tusooyaa oo laba qeyb aan ii dhahay baamiyi haaf waay hadda biyaa la saara dabkaa saar hadda waa aragtiinoo korkiisa wax socdo oo jaala saliid ma jeedin hadda aan ii tusooyo saliidoo dhale wax saliid ah ma ku darin ani hadhowta markaa mirna kadib waa ku darsan doonaa saliida hadda marka dabkii oo saaran yahay waxaan rajeynaa inaad ka boga doontiin insha allah wixii su-aalaha nacaad waa dhib malaba kasoo jawaabi doonaa hadda waa damiyo oo wax yar markay kuusoo haraan ma aragta oo timahaaga in anfacayso oo kale camal ah waa miiranaysaa marka maanta ani keligeeyaa joogay laba qeyboodaa sameeyey marka qeybaa iska xareynaa ani qeybtan inaa isticmaalaa isku dayaa insha allah qeybta kalena haddaan ii tusaa qeybtan hadda waa miirnay markaasaan u miiran wajeedaa jaalahan waa wax timaha qooyayo dadka timihii adkaa aawen jaalaha waa timaha wax qoynayo ukunaa ku darsaa ukunta dadaa waxay dhahaan waa la kala reebaa oo hadaarta waa kala reebo kartaa hadaartina waa kuwa dari kartaa maxaa yeelay cadaanka iyo jaalaha labadaba faa'iiday kuu leeyihiin marka waxaa la diidaa bas inaa iska badisid ukunta dadka timaha qalalan way dhibaysaa waa sax balse bishii oo dhan laba xab ukun ku darso ama hal ukun camal isticmaal ukuntaas ka badan laakiin baamiyaha mar walba waa isticmaali kartaa oo isbuuci 2 beri aa ka wadaa 2 mar waa ka isticmaali kartaa okay marka waxaa sameey kartiin baamiyaha 2 mar la isticmaalaya waa isniin iyo khamiis laakiin dadka bariiska marsanaya qasilka iyo cilaanka ayaga hal mar isticmaalaan hal marna qasil iyo cilaan isticmaalaan okay qaybtii labaad oo maane hadda baamiya jarjareen hadana qaybtii labaad waa la socdo insha Allah ay iskiin darsamin qaybtii hore waa miiray baaquliga ku shuu kuna ku daray hadda qaybtii labaad waa qaybtan dabka ma saari dooni balse waxa ku shibi doonaa makiinada wax lagu shiido qaybtii hore dabka saarnay okay inaa fahanteen arjina qaybtaasna waa sameeysan kartaa oo qaybtan waa sameeysan kartaa yaani labada qaybta ku fudud adi waaye markii la kariin faa'iido leeyahay markii la shiidan faa'iido buuxdo leeyahay markii la kariin waxaan ii tusay in jaalaha kor soo maray ee timaha qalalan ee aad u fiican yihiin okay haddana waa shiideena qaybtii labaad waa inaa fahanteen arjina okay haddana waa damiyay marka waxa sameynaa qaybtan way iga adkaatay oo xoogaa haddii lacal adeeg aa ka dareentid oo kale oo kuu miirmi waayo wax yar biyaa ku darsanaysa saasaa ka wada adeega hadda biyo yaraa ku darsada waa miir okay waa ii miirmi kan waxaa waay kan hadda gadaal aa ka sameynaa waa firinjeerkaa geliya okay haddan videogan ugu horeeya usoo laabtay marka asaa hadda isticmaalaynaa wax yar saliidaa ku daraa labada qaabkaa rabtin waa isticmaali kartaa laakiin hadda kanaa isticmaalaynaa saliidaa ku daray ukuntii iyo waxaa waaye baamiyihii waaye inaa fahanteen arjana